waxaa si dardar leh ku socota diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa guddoonada labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka oo dhowaan la dhaariyay isla markaana yeeshay labadoodii kulan ee ugu horeeyay. kulankii koowaad oo ay si kala madax bannaan u yeesheen labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka ayay ku magacaabeen guddiyada doorashada hoggaanka aqalka sare iyo aqalka hoose, iyadoo kulankii xigay uu ahaa kulan wadajir ah oo labada gole ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ee golaha shacabka, waxaana kulankaasi lagu meel mariyay xeerka doorashada guddoonka labada aqal iyo tan madaxweynaha, dhaqaalaha lagu diiwaan gelinayo musharaxiinta u tartamaysa guddoonka labada aqal iyo madaxweynaha, iyadoo sidoo kale la jadwaleeyay maalmaha diiwaangelinta, khudbad jeedinta iyo doorashada guddoonada labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Inkastoo ay jireen xildhibaano ka tirsan kudlada NISA oo rabay inay carqaladeeyaan kulanka baarlamaanka ee lagu meel marinayay xeerka doorashada labada guddoon ee golaha shacabka iyo sidoo kale tan madaxweynaha, inkastoo markii dambe looga guuleystay arrinkaasi, haddana waxaa maanta si rasmi ah u dhaqan galay jadwalka doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka guddoonka golaha shacabka ayaa shahaadada musharaxnimo siiyay maanta ilaa 6 musharax oo u loolamaya guddoomiyaha, guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo xildhibaan Cabdullaahi Aadan Axmed Balaag ayaa guddoomiyaha golaha shacabka isku diiwaan geliyay. xildhibaan Maxamed Cumar Caananuug, xildhibaan Maxamed Cumar Caymoy iyo sidoo kale xildhibaanad Sacdiye Xaaji Yaasiin Samatar ayaa sidoo kale isku diiwaan geliyay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka. sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa waxaa shahaadada u qaatay Cabdullaahi Cumar Abshir. dhanka kale guddiga doorashooyinka guddoonka aqalka sare ayaa shahaadada musharaxnimada siiyay 4 musharax oo u tartamaya guddoomiyaha, guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare. Senator Saalax Axmed Jaamac ayaa isku diiwaan geliyay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka, halka uu guddoomiye ku-xigeenka koowaadna uu isku diiwaan geliyay Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka mid ah senatarada laga soo doortay deegaanada Galmudug. sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka aqalka sare ayaa waxaa maanta shahaadada u qaatay Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo sidoo kale Ilyas Bedel Gaboose. howlaha guddiyada doorashooyinka hoggaanka labada gole ee baarlamaanka dowladda ayaa maanta ku bilowday si dardar ah, iyadoo ay dhiman tahay 2 maalin oo diiwaangelinta musharaxiinta u loolamaysa kuraasta hoggaanka labada gole ee baarlamaanka federaalka. waxaana xusid mudan in maxkamadda sare ee dalka ay maanta dhageysatay dacwad ka dhan ah guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FID, taasoo uu gudbiyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, ninka lagu muransan yahay kursiga uu ka soo qaatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kaas oo la rumaysan yahay haddii uu helo shahaadada inuu u tartami doono guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka. si kastaba ha noqotee, howlaha doorashooyinka dalka Soomaaliya ayaa u jihaystay dhinaca doorashada, iyadoo aysan muuqan in baarlamaanka 11aad uu sameynayo firaaq dastuuri ah, kaas oo dib u dhigi kara arrimaha kala guurka ee dalku u galay.